midda labaad waqtigeena waxaynu ku qaadanaynaa wixii khayraba ma yaraysanaynaba dadku way kala duwan yihiin qof cilmigu yaqaanaa qof qur-aanku akhriyi karaa qof waxaa jira aan cilmina sheegi karin dee qur-aankiina akhriyi karayn laakiin intee khayraha u furan dee hadday salaad tahay hadday sadaqo tahay hadday tasbiix xamdi istikfaar waxyaabaha ugu fadliga badan waxaa ka mid a inaad iska wardido subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar astaqfiru allah intii aad hadli lahayd uun aad murmi lahayd aad jaafaajirqi lahayd badikrigaasoo ilaahay ka farxiya kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim waa laba kelmadoodoo carabkana ku fudud miisaankana qiyaamaha ku culus ilaahayna jecel yahay maxay ku yeeli subxaana allahi walxamdu subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim intaasu baad wardigaaga ka dhiganaysa marka noocyada qur-aankana intaad taqaanaad ku celcelinaysa dadkana wixii aada u tari karto ku kordhi waa ayaamihii khayrka oo ummad badan oo baahan baa jirto oo duruuf adag iyo kaliil baa lagu jiraayo hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday nooc kasta tahay wixii aad heli karayso ku kordhi khayru nnaasi anfacuhum linnaas nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ummadda waxaa ugu khayr badan dadka ugu dheef badan